warwaatahay habeen wanaagsan baan dilay saaxiib yaalo ciyaari wan ka sinina iyadoo xal Liverpool runtii la amaanay runtii waxa ka yaabinaya labada nin xal bedel ku soo galay waxay ahaayeen laba nin oo mucjiso sameeyay hadrig ayuu caawiyay Jota Salahna hadrig ayuu ku dhalay 6 daqiiqo oo noqday ninkii historyga taariikhda Champions League u dhaliyay hadrig ugu dhaqsiyaha badnaa Salah bari korka ku gaaray halka Jota uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay tan Frank Ribery tan iyo waqti dheer kadib ee 3 gool hal ciyaaryahan ka caawiya labaduba waxay ahaayeen laba nin oo xal inta bedel ku soo galeen wacdiray marka Liverpool runtii neefta ka soo fuqday ayaantan oo ay juucsanayeen weerarsanayeen laakiin ninka khatarta badan ma taqaan waa Firmino waa ninka xilciyaareedka hogaaminaya goolinta kooxda Liverpool ya maxamed inkastoo xalay fardhiya goolashu ayaantan isaga kooxda haysa jirmo wata laakiin sakan lama filan waxa ku soo baxay Firmino waana sababta loo leeyahay war ciyaarta man hal ciyaarsininka waa ninka xilciyaareedka ku hogaaminaya 8 gool goolasha Liverpool 12 ciyaar uu ciyaaris 4 goolna caawiyay runtii marka ninkan ayaa xil ciyaareedku meel ka soo baxay Liverpool ay aad u weerarsanayd war ninkii Salah ahaana waa ninkii xalay 22 daqiiqo ciyaaray ninka la yiraahdo Diego Jota 3 daqiiqo ciyaar soo galay kana 22 daqiiqo ciyaaray wuxuu taabtay 9 jeer kubadda waliba waa ninkii ugu taabashada yaraa taariikhda Champions League haddana 3 gool dhaliya haddana 6 daqiiqo gool hadri ku dhaliya ka weyn buu gashtay cunuga Faraacinka 6-9 taawashu sameeyay runtii isagoo dilinta ku dhex taabtay 6 shot ka afar shot la turiya 3 u dhaliyay isagoo waa ka runtii xalay kabta weyn gashtay Salaxo iyadoo hadda Dejan Lovren oo saaxiibkiisa Liverpool ay saaxiib dhow ku ahaayeen uu u soo jawaabay dadka mucaaradka Maxamed Salah bariyaan caynay dhahay war madaxdaashka zero noqday tani markii lacagta la siiyay wax ma hayo wuxuu leeyahay kuwa nacab Maxamed Salah hadda maxad la haysaan camal waa ka wari Maxamed Salah kabtiisa ka weyn wuri waa ninka 6 daqiiqo ku gaaray wuxuu leeyahay waa ninka 15 daqiiqo intuu ciyaaray hadri ku turtuu leeyahay macna war kuwa Maxamed Salah nacabow bal hadda hadluu leeyahay macna Lovren saaxiibkiisa Liverpool buu cumada ku tuuraya Maxamed Salah midda kale Jordan Klopp iyo Didier Hamann waa ciyaartoyga Liverpool iyo Jordan Klopp imka gacan kooxda way isku dhaceen baa runtii kadib markii Hamann tobaadkan markii la arkay Liverpool oo xaalkeedu xun yahay Arsenal ka adkaanaysa wuxuu Hamann yiri mataqaan Liverpool soo ciyaari jiray wuxuu waxa la joogay xilligii Klopp ciyarin lahaa oo runtii xaaladda ku cadaadiyay Jordan Klopp hadda xaaladda aad ugu cadaaday wiri yani xaaladda aad ugu xun tahay oo waa ka daba timaaday wiri waxaan u badan tahay xilligii la raacdeyn lahayn la joogo wiri macnaha Klopp ayaa mid iska carooday haddana wargeysada Jarmal ka soo baxay waxay leeyihiin labada Germany way isku dhaceen ya oo waxa la runtii maadaama Klopp ku bilowday 10 sano kadib ku bilaawashadii ugu xumeed kooxda Liverpool waxa la leeyahay hadda way kala qaateen safaaradaha Jordan iyo Hamann xirkoodii sida uu ku soo dhamaaday waraa Klopp waa xunta ma dhigi kara ka war odagu waariya shaqo la jeclaa dadaas jira haddana ma taqaan in shaqadaas laga tabto mar ka war ya arshaqa booskaaga ninka kugu qabsanayo wareer waa Jordan ninka hadda saas xiriirku ku jiray see ii dhigi kartaa waa hal raacday uu taagan yahay Jordan Klopp ya inkastoo ninka uu kooxda wax badan la qabtay laakiin hadda bareen xaaladda ku dawa xun oo runtii Liverpool waa ka jaban tahay wariyahay ninkan ma taqaanin ninkan aniga ayaan farahan ka qaaday magaciisa hay screenshot baan ka qaaday horta magacaan idinka intaan la iin gaadinaysiin intaan screenshot dhag ka siiyay hadhow kasan soo dhigaya waa yahay ninkan warbaahintii dunidu way ka cabsadeen magaciisa bariyo hore anigu qudheedu dhowr maalin buu iga hor imaaday Napoli wax ka sheekeynaya waa ka booday waxaas magaca akhri suura dadka Bruno dad cusub soo biiray macna Bruno dadka cusub haddana waxa la rabaa pronunciation ku dhaaqida qofka inaad si sax ku keeni kartaa la rabaa ninkan aniga farahan ka qaaday maalmo dhan waa ka warwareeganay waxaan maanta hadda marka laga hor imaaday waxaan cunugaani Maxamed Cumar ku tuurtid ninkan mugta ninka Napoli dadka qabsaday waa ninka Napoli xilli ciyaareedka libaxa ka ah ee wacdareynaya ee mucjisada ah ee saaxirka ah dadkan iska dardaraya ciyaarta Liverpool ka yaabsaday dadkii dhan ya ninkan magaciisa ka gaarsanay ya cunugan maradu kaaga dhicin baan islaha ya idinka xataa sii kici magacaas meesha ku qoran magacaas kici qaybtu ka taa ya meelaha waa la kicin karaa wixii waa isbeelin karaysaan laakiin waxa la rabaa qofka sidiisii ku dhaaqdaan ana hadda kor waxaan arkay Conte tawbari kooxda Chelsea may miskanti waxa wuxuu dhahay ya N'Golo Kante magaciisa uu dhahay dad badan ba ayaa isna dad ku qabsaday dad badan waxa arkay magacyadooda ku qabsaday baan dhahayo war sida leega yeeli magaca Leitoosiyo marka ninkan aad u jeedo marka waa ninka ta sameeyay markan waxaan ninkan kale waa ka baqayo misda caalamkana ka baqayo ninkii Fabrizio Romano iyo kuwa kale badan waxaan arkay markii ugu horeysay ninkan la arkay waxay lahayn ay ka asi macnaha ka ashtakooni waxay lahayn inkastoo ninkan magaciisa nagu cusub yiraahdeen yani hanolo cimaamado hadii pronunciation aan qaladnibay lahaayeen ya oo ninkan waa nin libaax
laakiin caalamku wuxuu ku dhibaatooday berihii hore oo dhan magaciisa sidii ay yani sheegi lahaayeen anigu dhido maanta dhan dhowr mar baan daaray qaybta kuwaa sidaasaan ugu tagay qaybta dhexda marka lagu dhawaaqaya oo yani lagu leeyahay dadka wada qabsanayaan ya isbeeli walaal ya kabta ka weyn waa ya logonka ma aha waxaan odku ordaysi ma aha yani marka meesha ninka waxaa la yidhahdaa kafarad yahu waxaa la yidhahdaa karafad qayliya ninkanu waa ninka xilli ciyaareed ku wareegay kooxda Napoli 7 gool dhali 7 gool caawiyay waa ninka xilli ciyaareedka kanu Champions dadka ka yaabsanaya waa ninka nin caadi ma aha ya idinkuna caawa bal magaca ku shaqulaya Euroleague ku suga kaas ka kicintiis Euroleague ku suga anigu mar waxad yacmul agmari muusoo laaban kari wallahi nin dhib badan weeyaan laakiin waxaa kaloo laga yaabay ninka la yiraahdo Ronaldo 2 gool ayuu dhaliyay runtii xalay isagoo xidig ugu fiican ciyaartu qaatay runtii ya ninkan bandhigiisa ugu fiican buu ku soo laabanaya bariyo laga shakinay runtii hadda waa nin wax kala ah ninkana waa alaaba iyo Toni Kroos ya Anthony Rudiger bay garab istaag u muujiyeen kaasoo habeen dhaweyd gool xilida uu dhaliyay dhiig kaga daadtay ya marka waxa la arkay ilaa xilligii xataa dhaqaatiirta ya inay mataqaana garabkiisu taagnaayeen isagana waa ka ilmahaynana waa cajabta ah ee Yuruboobay iyagoo xataa dhiig ka socda laba farood ay taagayeen shuqulaysii laga maraya halaas ka war marka waa kuwa kaayo warku weyso wuxuu yahay nimankii Barcelona ahaa ya saxaafada Isbaanarka waxay leeyihiin Barcelona musiibo ay qarka u saaran tahay kadib 3-3 ay galeen iminku Barcelona Mareysal mucjiso ya ay u baahan tahay si u soo gudubto runtii waxay saxaafadu leeyihiin musiibo ay Barcelona ku wajahan tahay bay leeyihiin runtii qarka u saaran tahay saddexaad ay kaga jiraan groupka iyadoo natiijadu inuu gacantooda ku jirin waa Inter gacantooda ku jirtaa ya qofka markuu isagu gacantiisa ku jiraan soo bixi karaa waa inay Barcelona ka badiyaan xataa hadii Barcelona ka badiyaan Bayern Munich iyo hadii ka badiyaan xataa nimanka kale ay ka badiyaan labada ciyaar u harsan xataa hadii Inter ciyaarida ay adkaato xataa Barcelona xataa Inter hadii xataa oo ay laga badiyo oo xataa Barcelona Inter isku dhibcan noqdaan xataa Inter waxay Barcelona ku reebaysaa farqiga labadii niyaad badiyay iska bixaysa Barcelona Euroleague toos u aadaysa iyadoo dood iyo booq lahayn xataa Inter todobaad ka socda hadday adkaato Barcelona saas Euroleague soo aadaysa xitaa hadii Bayern Munich ka badiso toos Euroleague soo aadaysa bina waxay u baahan tahay in labada ciyaar u dhimo adkaadaan Interna labada ciyaar soo aadanay kufaan marka wax weeyaan Barcelona wax gacantooda ku jira ma bahanba marka saxaafadu Spain waxay leeyihiin runtii Barcelona qarka waxay u saarantahay musiibo kale sababtoo ah sanadkii labaad isku xiga ay cidihii Euroleague u socdaan marka Barcelona masraxyada waa laga ayaantan tan iyo 2015 ayay ilaa hadda Champions ku wareersan yihiin maray gruubyada ku haraan iyo maray ceeboobaan ya nimankii kale waa qosol gariirayaan waayahay ya arintaas ma fakfaagaye dadkan waraawo ku kacsane ilaa ay xalay dhan wax ka soo sheegay arimahaas koode ya adduunka ay caanuleynayso jeclo adoo ka sheekeynaysid yani cidaha hadad cidaha kale ku sii kor qaado cidii madaxa xanuunaye laakiin waa daacadii balse waa ka laabanaya haye madax la haydin dago ciday madax la haydin dago hay waa madaxin ma dagne nin Euroleague sanadka u socda shaqo marbiye ya kulay waa ka midda kale Messi ku kaceen kabiirka saxta marada ka dhacday habeenkii xalay ah moogta habeen waxay Barcelona final u ciyaarta habeenkii xalay qof kasta Barcelona ayaa murugooday markii Barcelona ay badi waayeen Euroleague inay aadayaan bay dareemeen qof kasta Barcelona ooynayay saasoo tahay Messi wuxuu like saaray Lautaro sawir uu ku dabaaldegay uu dhahay Inter Forso wanikii xalay ka dhaliyay Inter ka dhaliyay Barcelona goolka oo dabaaldegay ayuu Messi like saaray walow isku wadan yihiin laakiin ma ahan wadan maxay tahay dadka hadii Euroleague loo diro dadka waa Messi jamaahirta Barcelona waxay yiraahdeen kan waa mid bila xishooda waxay leeyihiin waana qaacin han lagu soo celin beeleen kooxda yani kan la keenin beeleen kooxda ma qaacinkaas noo keenaysa in Real oo xalay nagu dabaaldegayay oo runtii markii yani sawir nin cadawgeena ah oo anaga nagu baashaalay oo Euroleague noo dirayo u la gareey bay leeyihiin marka Barcelona 3-3 ku dhamaatay waxay ka dhigan tahay Barcelona bay dhibaatadooda tahay Messi marka waxa lagu cambaaray inuu qoraalkaas la gareey waana qoraal Lautaro soo dhigay bartiisa Instagram-ka ayuu Messi like ku qabtay ka war ma kala baqin ka war like arlaagta idin marka qarar qoona ka war like to in loo meeldayaa kabiirku meesha marada kaga dhacday Barcelona habeen aan ooyay albaabkii xiro ku jirta oo ay ka yani ku xun tahay oo sanadka Euroleague u socota oo shiidna yani hatta Barcelona xataa ila reey waxay ka dhigan tahay mataqana dhibaatooyin dhaqaale xumo xataa ku sii dhacaysa waninkii laha uu soloona season kan Ligas wax badan u fasiraya arrin iska sii joogi doona BC wuxuuna si xumeeyaba xiriirka kala dhaxay taageerayaasha kooxda Barcelona iminku bilaabay inay ku qararaan Messi waxay leeyihiin yaanu kala soo celin waxay leeyihiin waa bilaa xishood oo waxay leeyihiin kanu waa qaacin wana Messi ka kooxda Barcelona soo ciyaaro gaaraya ilaa iyo 778 ciyaarood isagoo dhaliyay 672 gool marka Messi meesh marada kaga dhacday isaga xataa lagu cumaday moogtahay
barcelona aan ooyay ku jirto ninkii like saari qoraal oo loo taariikhdu baaldagayo adag xataa marada kaga dhacday hadduu Messi ku hayo adag waa la qabanaa way la qabtaa adag qudis dadkan way xanaaqsan yihiin aniga gabanay dadka kan fiiri aniga gabaro waxaan taaganahay Madrid magaceeda soo sheegan taaganahay oo ah kooxda yani wiligeed aan groupka Champions ku harin mar baan saa ku soo tuurtay xalay aan ugu tuuray waa canaantay ciidaha kan intaan kadib wax muu dareemina aniga gabaro macna dadkan waraawo ku xsanay Barcelona madaxa si gelin ay gatay kabiirka marka suu like u saari kara Barcelona sibir ninkii ku baashaalayo Europe League u diraya marka kabiirka baasha lagu haystaa Messi waxay leeyihiin jamaahirtu waa qaacin yaan lagu soo laaban meesha waxba ka taagan runtii xitaa hadda Barca waxa la sheegay 18 milyan inay seegi doonto dhaqaale ah sanadkan inay macnaha Barca ku harto wareegyada hore ee jaabayda wareegan jaabay waa Europe League macnaha wareega macnaha groupka diba ku haris koox team fiican matid Real Madrid u baahan tahay maadkid laba sanad Europe League la u socotid oo groupkan dhaafilaadahay caafimaad ma laga hayo marka Barcelona waa tii sanadkan isjacburisay dhaqaale suuq ku bixisay ciyaartoy kala duwan soo gadgadatay yaa hadana Barcelona waa kuwii budgetadoodii si kala gadgatay xuquuqaadkoodii way gateen wixii gadaal laga qaadanayay horumarsadeen yaa saasoo wax islahayn sanadkan Champions League tumisay Dominic helaysin moogta Champions League wareeg kasta ugu dubta dhaqaale fiican baad ku helaysaa marka Barcelona in wareegan ku haran waxay ka dhigan tahay 18 milyan oo lacag ay filayeen ba ay heli kareen marka taa waa xilli xitaa la sheegay Laporte inuu Xavi xal la kulmay waa la runtii marka isaga xitaa waa kala shaqeeyay nimanka inkastoo Laporte taageer u ah Xavi marka waxa leeyahay Xavi si aan hadii xataa ku soo londoskiyay Dembele ku sii celiyay ku raviyay ya sanad dhaw tagtagaysa maxaa dhacay kambiyaalo igilnay aniga intaasan ku soo qarash gareeyo kooxdu Europe League i wadaay wala kala shaqeeyay xalay Laporte uu la hadlay Xavi si ahaan Xavi ilma isbaanarka uu yurto labada ilmooni wax lagu caay malaha Gavigan uu roon yahay dani Xavi ka kale uu roon yahay laakiin Frankie waad fursad siin kartaa Frankie waa inaad fursad siin kartaa ninkaas baa lagu eedeynaya inaanu fursad siinayno runtiyo taawata marka Xavi meeshan qadar maan Real Sad ku laay u maamuli jiray hadda doobirka waa haya midda kale Alan Shearer ayaa qaba Harry Kane inuu dhal laha gool lamid intuu Haaland xilciyaareedka Man City dhaliyay haddii Tottenham xagay la soo dhaafay ka iibin lahayd Man City ay Haaland qaadan lahayd wuxuu leeyahay koox nin Guardiola agtiisa tagay يا قول موينه ورمعنا ذاك سبلوني وتانو رصاص الباب كله قديقه ورمعنا يعني حو تاجن هاي سنة كي هره مان سيتي كم بيكون وقتي هذه كيني قادة دور السيد هذا حالهم قرش ولا الله اسمه الله ورمعنا متى كانوا حلا هاي عياريها والوريها والبق أو عيار ولا كحل جوارديلو ويراح العيارات كاستفرت كيس جول بناك ويا ولا معناه كحل جوارديلو هو المال أي كتشل عنته جولش ولا رنتي وأنا نك حالا اللي راد العيارات كان وأنا كان اللي استحي طبعا عيارات لا تنقول يا مركا وحلا هاريكين هلك هاريكين العيارات كان اسمه ودري سجال جول توني زدح عيارتهم وعياري مجدا ماشي نيكا توني زدح وكعياري هالن والله تون كل كانوا سجالوا كل اللي معناه مركو حلا هذو كان أنت جوج له حتى جوان قولوا لا يعني ست حلا وميل جولش وكتشل عين ميدا كله وانيكي جيمس هبا مالين كدب صوب حي مقالة ميلان كوهري مركو كودا محل كارونتي عيارتو تشيلسي جوري صوبعين نينكي أيا مال مكلا ماشي كوهري مقالة ميلان oo runtii halka waxa xaaladiisa lagu fiirinay runtii James wali Chelsea waxay rajeynaysaa in dhaawaciisa aanu darnaanin rag badan oo adduunku seegi doona ayaa ninkan laga cabsanay inuu qayb ka noqdo waxaanu soo raacay isagoo ninka 250 isbuuci qaata diyaarad ay rakaab saareen shacaba halkaas bayna odagu sawir ugu cimamateen baa runtii laakiin Chelsea waxay rajeynaysaa in ninka James dhaawaciisa aanu darnaanin marka ciyaartoy goor soo baxay isuu dib u ka soo baxay xilli dimaari qodiisa la sheegay in 20 maalmood soo aadan dhaawac uu ku seegi doono kadib dhaawaciisa oo gaaray xalay ciyaartoy ayaa laga shakiin inuu seegi doono ciyaaraha koobka adduunka laakiin hadda waxa la filayaa baa inuu ciyaaraha xilliga fid noqon doono uu joogi doono midda kale warku weyn ciyaar wuxuu yahay caawa ya waxa maqli jirtay ya wax la arag maqli jirtay adiga Diego Maradona wixii isku hayaa banoonigan dad wax soo qabsaday wixii hore dadkan lacag jidka u taala ka war fanaanadii Maradona hadda kor ku dheeli gado ataal adduunka maanta maalweed fanaanadii Maradona uu ku dheelay ayaa la gatay dhaqaale badan laga sameeyay waxayna fanaanadii lacagti ugu badan lagu iibsaday yahay haddana waxa leeyahay banoonigi Diego Armando Maradona uu gacanta ku dhaliyay Ingiriiskana uu ku reebay 86 ciyaari Mexico World Cup-ka ayaa hadda waxa la siisanay lacag la 3 milyan waxaana gadanaya nin cajabeed oo garsoore ciyaartaas dhexdhexaadinay wuxuu ahaa nin cajab ah oo reer Tunisia uu ahaa waxa la radaa Ali bin Nasir Ali wuxuu leeyahay waa xilligan bahashan gadan lahaa banooniga xilligan san u yaala ka war maqaarka usna xataa كمال داري عادي يعني بريغ مانتو ولا شوتي مقارك بريغاس كي بيلي ودرنا كان وحيرو كورونا marka wixii Maradona wuxuu geeriyooday isagoo 60 sano jira
lagu kala taki wadna xanuun dartii u geeriyooday runtii laakiin hadda wixiisii baa la isku hayaa maalin weyd ciyaartooy yani fanaanada ay kala bedesheen habeenka Maradona uu waalayay Ingiriiska labada gool ka dhalinay gacantan kaga dhaliyay ayaa fanaanada isdhaafsadeen ba wuxuu ku gaday maalin weyd fanaanadii Maradona uu ka bedeshtay fanaanadii Maradona habeenkaas ku ciyaaray wuxuu ku gatay lacag 7 milyan waa fanaanadii ugu qaalisaneed bay yahayd iibkuna ninkan wuxuu u socdaa lagu leeyahay runtii inuu ku iibiyo garsooraha ciyaarta isaga Bruno qaatimo habeenka bisha soo aadan ayaa lagu iibinay lagu leeyahay London waxa lagu iibinay lacag dhan 3 milyan Bruno Maradona Bruno waxa lagu gadan qana Allah Bruno ma taqaanaa adiga Bruno Maradona oo gacanta ku dhalinay waa lagu gadanaa macna lacag dhan 3 milyan lagu gadan raba Maradona ma taqaanaa team Maradona habeenka xirnaa waa marka Maradona waxa loo arkay inuu yahay greatest of all time beriga ka ilaa hadda dad baa ku dooda kii ugu fiican maqaarka ayaa lagu doodayay marka bisha soo aadanna garsooraha cajabeed ayaa gadanaya baa runtii 16 November ayaa la iibinaya haye Brunogaas ayaa soo qabanayo 3 milyan Allah waa marka garsooraha ka ayaa iiminku hadlay wuxuu leeyahay anigu waxaan ahaa 86 waxaan kamid ahaa garsoorayaal 42 garsoore oo tartanka loogu wacay bariga Afrikaanku fursad badan lama siin jirin uu leeyahay garsoorada kuwa Yurubka ayaa aad loo siinayay balse habeenka nasiibkii uu ahaa uu leeyahay ciyaarta garsooro Maradona goolkii kood gacanta ku dhalinay runtii maan arkin buu leeyahay runtii maxaa yeelay Shilton iyo Maradona way is aadanay labada gool hay markuu gacanta ku dhalinay gool hayaha iyo ciyaartooygu dhawarkiisan xig uu leeyahay gacanta ku dhalinay habeenka ka uu leeyahay calaamaduhu iimaanu sheegay isaga ayaan fiir uu leeyahay isna markaan arkay isagoo gar orday gool lahaya anigu gool baan iri buu leeyahay runtii tababaraha Ingiriiska bariga ka uu yimaaday Bobby Robson wuxuuna igu yiri adoo shaqo fiican baad qabatay laakiin ninka calaamadaha ku ahaa waa nin bila mas'uul ah buu leeyahay runtii qaladkiisa yani qaladka saxay marka ninka garsooro wuxuu hadda gadanaya baa leeyahay fanaanada taasna waa tii Bruno uu gadanaya uu Maradona ku dhaliyay goolka fanaanadina waa taad arkaysaa runtii marka adduunkii wixii Maradona la gadgadanaya Mbappe ayaa la sheegay wali in dagaal uu ka dhaxeeyo kooxda Biishi waxa la sheegay in Biishi dhexdooda la isku dhacay cunuga kibirkiisa waa loo dul qaadan laayahay dadkii uu la dagaalaya January-na buux ayuu doonayaa Neymar hal raacdi uu leeyahay ciyaartooyda halay keen uu leeyahay runtii dabeecadiisu cid kasta way dul qaadaysaa hadda waxa la soo warinayaa in Neymar isku dhacsiin sidoo kale group badan oo Americana ciyaartooyga America soo jeedo kale sida Marquinhos kale in isku dhacsiin sidoo kale waxa la sheegay ciyaartooy Isbaaniska oo Ramos ku jiro in ninka ka careysan yihiin kaliya afar nin ayaa ninkan taawacsan baa leeyahay runtii waana mid kamid waa Hakimi saaxiib fiican yihiin iyo sidoo kale nin la yiraahdo Kambembe iyo Mukeli iyo Hugi Itek maxaa la yiraahdaa Ekitike waxaana Biishi adduunka ku dhaqaartaa ka war lacag haysta Ekitike oo ciyaar ka war marka ku dhahay kuwan dad ma aha marka ku dhahay ka war afka hore ka dhisiin oo dimaashadeenka ka dhisiin marka ku dhahay saas waa afka hore Messi Neymar alu leeyahay macna Ekitike oo ciyaar meelaha kalena kuwaas wax miya marka kuwaas maxay ya waas dhan guushay sanad kasta maxay u qaadanaa jablaal war dadkan afka hore ka dhisiin macna dimaashadeen taqana waa inta wajiga ku aadano la iska qurxiyo maxamed qadar inta galabta taadina way dimaashadeen ka toosinay inta wajiga dad qabto Facebook ku dhaqanaysa istiraatiijinaysa waa dimaashadeen intaas dadka arka ilaahu ma سؤال كوست دقيقة كاغا تالو لكن ماشيين انت هوري la iska toosiyaa sid magaalka u gasho kuwa dimashidanka dhisay weerarka ile qatarkii mooyaane aw ciyaara ala ay hal wal isku haya meesha tahayu marka ninkii hatta Argentinaanka Messi ninka ku faraxsanaa baa leeyahay marka ninkii waa la soocay oo kibirkiisa iyo inuu kooxda ka weyn isu arkaya xitaa shaqaalaha Biishi iyo ciyaartooy guud ahaan waxa leeyahay taa way isku raacsiin oo ciyaartooy Mbappe waa laga soo horjeedaa ninka wuxuu isleeyahay adduunka ugu laacibsan ada Biishi ugu khatarsan qajajac waaye waka meelahaas uu haweenka jamliga inuu taaga adduunka ugu laacibsan uu ismaleeyaa haweenka jamliga inuu taaga macna meesha inda taaga Biishi dil reebay xataa kama qaban karo Eric Bell wuxuu sheegay Cristiano Ronaldo inuu hayn ciyaartooyga ugu khatarta badnaa uu ku soo arkay tababarka Manchester ee inay ahaayeen Rashford iyo Martial ya ولو بقبي رونالدو ay joogeen rag xirfad kale meesha wuxuu labadaba uu cajiibsanaa uu leeyahay xilli minad la sheegay inay isha ku hayaan ciyaartooyga Evan Tony oo Brentford u ciyaara hadii Cristiano Ronaldo uu kooxda ka baxo marka waxa la leeyahay Tony waninka xagaga yaani xagagii la soo dhaafay dhaliya 14 gool Ronaldo xilli ciyaareedka uu maraya 2 gool marka waxa la leeyahay haduu ugu baxayo ninka ayaa la keenaya booskiisa xilli Chelsea ay ciyaartooyina u qaadanayso waxa la sheegayaa Gavardiol inuu soo raaci doono ciyaartooyga Nkunku oo Chelsea goor heshiis la gaartay Gavardiol Nkunku oo xagga ka imaanaya Arbig sidoo kale waxa soo raaci doona leeyahay ciyaartooyga Jude Bellingham iyo Bavard Chelsea dib u dhismay baa lagu sameeyaa booli ciyaartooyin ayuu keenaya ugu leeyahay runtii waliba Jude waxa la sheegay inuu tartankiisa inay Chelsea hogaaminayso lacag dhan 87 milyan marka waxa la leeyahay Gavardiol iyo ninka kan ee yiraahdo Nkunku oo ka wada imaanaya halka ka Jude iyo Bavard oo inuu soo bixi doona raso ka imaanaya Mareykanka Jarmalka waxa la jirsi aad baa loo adkeeyay xilli Milan la sheegay laakiin inay isbuucida soo aadan doonayso ka hor intaan kooxduga la baasin in Rafael Levish ay ka siixaan si ay ugu difaacdaan ciyaartooygan ku biirin kooxda Chelsea war saaxiib Real nabadgelyo